Superstar Suuriya tobankiisa filim ugu sheekada wanaagsan kadib markii Superstar Suuriya filimkiisa ugu dambeeyay Soraru Batru si weyn loogu amaanay haatan lagu tilmaamay inuu ka mid yahay filimkaas sanadkii tagay 2020 Hindi filimada ay sameeyeen kuwooda ugu sheekada wanaagsan ayuu ka mid noqday Soraru Batru waxaan idin haynaa 10 filim ee Suuriya sameeyay kuwooda ugu sheekada wanaagsan qiimeyn shabakada IMDb rating ee 10 dhibic wax lagu qiimeeyo iyo 10kaas filim inta dhibic ay kala heleen Suuriya waa 40 jir wuxuu fanka Tamil ku soo biiray sanadkii 1997 ilaa iminkan wuxuu sameeyay ku dhawaad 40 filim oo door dhameystiran ku leeyahay wuxuu ku caan baxay inuu sameeyo fariin walba sida action shactaro jecel xumaan iyo xarakaad dhan walba ah hadda daawadayaasha qiimaha badan waxaan idin soo diyaarin 10 filim ee Suuriya Sifa Kumar sameeyay hogaamiyaha ka yahay kuwooda ugu sheekada wanaagsan hadda daawadayaasha qiimaha badan intaan guda galin barnaamijkeena fadlan marka hore ku soo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb filimka koowaad waa Soraru Batru oo la daawaday sanadkii tagay 2020 qiimeynta sheekada uu filimkan helay IMDb rating 10 dhibic lagu qiimeeyo wuxuu helay 8.8 dhibic wax lagu qiimeeyo filimka labaad Sandeep oo la daawaday 1998 qiimeynta sheekada uu filimkan helay IMDb rating ay siisay 8.6 filimka saddexaad waa Beta Mangan oo la daawaday 2003 qiimeynta sheekada uu filimkan helay IMDb rating 10 dhibic ay ku qiimeyso waxay siisay 8.4 filimka afraad waa Baranam oo la daawaday 2008 qiimeynta sheekada IMDb rating 10 dhibic lagu qiimeeyo filimkan wuxuu helay 8.1 filimka shanaad waa Kaaqa oo la daawaday 2003 qiimeynta sheekada IMDb rating 10 dhibic wax ay ku qiimeyso waxay siisay 8 dhibic filimka lixaad waa 24 oo la daawaday 2016 qiimeynta sheekada IMDb rating 10 dhibic wax ay ku qiimeyso filimkan waxay siisay 7.8 filimka toddobaad Ayatika oo la daawaday 2004 qiimeynta sheekada oo filimkan helay 10 dhibic wax lagu qiimeeyo IMDb rating waxay siisay 7.8 filimka sidida waa Raqta oo la daawaday 2010 qiimeynta sheekada IMDb rating 10 dhibic wax lagu qiimeeyo filimkan wuxuu helay 7.6 filimka sagaalaad waa Nanda oo la daawaday 2001 qiimeynta sheekada IMDb rating 10 dhibic wax ay ku qiimeyso filimkan waxay siisay 7.6 filimka tobanaad waa Monam oo la daawaday 2002 qiimeynta sheekada IMDb rating 10 dhibic wax ay ku qiimeyso filimkan waxay siisay 7 xogta sare waxaan ka fahmi karnaa daawadayaasha qiimaha badan Suuriya Sifa Kumar inuu ka mid yahay atoorayaasha koonfur Hindiya ugu sheekada wanaagsan maadaama 10kiisa filim ugu sheekada wanaagsan 5 ka mid ay heleen 8 dhibicood iyo in ka badan la siiyay halka 5 kalena ay heleen 7 10 qiimad wax lagu 10 dhibic wax lagu qiimeeyay ay heleen haduu daawadayaasha qiimaha 10kaas filim aan soo sheegnay mid ka daawata comment noogu reeb fadlan muuqaalkan like saar fadlan hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar share muuqaalkan sidoo kale like saar salaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh